laba boqol oo mar aad ku laalaabato adigoo waxa weeyaan nadiif ah oo qof wanaagsan ah oo daahir qaba oo dharkaagu nadiif kuu yahay oo daahir kuu yahay oo qiblada u jeeda oo weese qaba oo meel cidlaa jooga oo qof ku maqlaya iyo ru'yo iyo sumca midna aysan jirin sirran u akhriya allah magaca ah ilaahay in lagu bariyo oo lagu wardiyo waanu ka soo sheekaynay faa'iidooyinka laga helayo waxaa ka mid ahaa haddii waxaa ka mid ahaa qofkii akhriya imaamka la yidhaha imaamu suhrawardi waa magaalo madiinatun fi adribijaan waa magaalo ku sugan baa la yidhaahdaa imaamka loo nisbeeye weeyaan imaam wuxuu ahaa cajiiba qarnigii 7 oo faqiiha almuxadith alfaqiih alzaahid fi qarni 7 u ahaa imaamkaa suhrawardi la yidhaahdo wuxuu yidhi qofkii akhriya maalinta jumcada qabla salaati intaan salaada jumcada la tukanin calaa dahaaratin iyo wanadaafati thiyaabin ka akhriya macnaha ku akhriya ka akhriya mar u dhaca carabkeenu ku dhacay laakiin waa hadde adoo nadiifnimo ku sugan ama dhar dahaaro iyo nadiif ku sugan baa looga jeedaa adoo ku sugan yacni nadiif ah oo dhar daahira wata oo dhar nadiifa wata oo dahaaro qaba qofkii akhriya khaaliyan siran xaalow ya mid meel cidlaa joogo khaali ah oo haddana si qarsoodi ah u akhrisanaya 200 marada carabka mar wuxuu nooga dhacay laxadaadka aan ugu laabtay yacni waxa weeyaan lamaxaadka yar aan ugu laabtay waxa weeyaan marna waan caddaynay 200 weeye 100 ma aha 200 oo marna ka akhriya tayasara lahu madluubu wa in kaana maa kaan wardiga lagu wardiyey ka mid tahay 200 oo mar haddaad maalinka jumcada akhrido yaa allah jalla jalaaluhu yaa allah jalla jalaaluhu yaa allah jalla jalaaluhu ood ilaahay ku bariso 200 oo mar aad ku laalaabato adigoo waxa weeyaan nadiif ah oo qof wanaagsan ah oo daahir qaba oo dharkaagu nadiif kuu yahay oo daahir kuu yahay oo qiblada u jeeda oo weese qaba oo meel cidlaa jooga oo qof ku maqlaya iyo ru'yo iyo sumca midna aysan jirin sirran u akhriya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku gaarsiinayaa madluubka iyo danta aad ilaahay magaciisa ugu yeeranayso wa in kaana maa kaana wardigeed taasaa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa culummadu inay dhaheen qofka xanuunsan oo adibadoo dhan iyo dhaqaatiirtu dawadiisa ay ka quusteen hadduu akhriyo oo ku laalaabto qadarka laga akhriya meelaha kutubta hadda ma sheegaan laakiin haddaad 1,000 ka akhrido sidii oo kale ama 200 ka akhrido way ku anfacay ama ka sii badisaba qof xanuunsan baa qadar go'an asaguna uu awoodo ka akhriyey magaca allah qofkaas haddaan ajashiisii dhammaanin uu ku caafimaadaya waxaa kaloo ka mid ah faa'iidada laga helo ilaahay macrifada iyo yaqiinta istiqraaru liimaan iyo waziyaadatu almacrifa in ilaahay uu kuugu badinayo oo almacrifatu fi lqalbi istiqraaru liimaan fi lqalbi